ugu horreyn faahfaahin naga sii dagaalkii maanta argagixisada daacish ay kusoo qaadeen ciidanka Puntland iyagoo isticmaalaya qaraxyo iyo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. adeer waa mahadsan tahay. haddii aan faahfaahin kaa siino 24 saac howlgal baa jiray loo diyaar garoobayo in muxuu ahaayey nimanka markii ciidanka intelligence-gu soo hubiyey saldhigyadooda mukhaabaraadku la rabay in la weeraro kadibna xalay ayay waxay soo qaadeen counter attack wax la yiraahdo oo ah inay weerarkii inta iyaga lasoo weerari lahaa inay wax weeraraaneen oo abu sameeyaan. weerarkaasoo isugu jiray qaraxyo baabuur ah iyo mootooyin iyo dadba naf noolba. ciidanka geesiyaasha Puntland waa istifaaceen nimankii soo weeraray way jibiyeen wayna laayeen. isla markaasna waxa weeye raaci hore hadday jibiyeen raac labaad oo diyaar garaysnaa oo iyaguna infantry baa soo weeraray ciidanka iyagoo laba jaho ka soo weeraraya labadii jahoba waa lagu jibiyey. ciidamada geesiyaasha ah halkaa guul bay ka gaareen. waxaa dhimashadoodii nimanka ilaa iyo haddeer lasoo cadeeyey ugu yaraan 100 iyo waxaa lasoo cadeeyey dhimashadoodii 60 iyo wax la jira bay dhimashadoodii noqotay. welina waa la eryayaa. ciidanka way ku taba jiraan muxuu ahaay wixii farxad ahaa. innaga dhexde xaggeena ah waxa weeye wixii ku dhintayna allaha u naxariisto oo haddii ilaahay nin naftiisa iyo maalkiisa muxuu ahaay difaacaya ilaahay xaggiisa uu naxariis ka helayaa. dadkoodana baal dahaba bay ugu qoran yihiin. wixii dhaawacmana allaha u boogadhayo. iyadana intaasaan leeyahay. 24 saac iyaga naftoodu maanta ciidanku waxaa ka duqeyn baa jidhay. howlgalku ma ahayn mid dhulka keliya yahay duqeynna waa jidhay nimanka la duqeeyey. khasaaro ballaarana ciidanku waa u geysteen guulo badanna way gaarsiiyeen way gaareen. meesha lagu dagaalamay una waxa la yiraahdaa haraarya la yiraahdaa waxayna ka tirsan tahay toga jacaylaad bay ka tirsan tahay. sidaasaa wuxuu dhaceen guulshaas baana ciidamadu gaareen. intaasaanu ilaa iyo haddeer xaaladu maraysaa. waayahay marka deegaanka haraariyo istiraatiiji ahaan waa meel noocee ah maadaama ay xalay weerarka kasoo qaadeen? meesha waxa weeye waa dhulkii lagu ayaanta horeeto qurac bay ku xigtaa. waa meel muxuu ahay istiraatiiji ahaan iyo muxuu ahay laba tog isugu yimaadaan. labadaa tog bay weeye meesha iyaguna ciidan kasoo ataagareeyeen. waayahay dhanka ciidanka oo kale maadaama dagaalku uu ahaa mid culus oo ay gaadmaha ay soo qaadeen oo iyagoo isticmaalaya baabuur qarxa mootooyin maxaa khasaare ah oo dhinaca ciidanka haddii ahaan lahayd dhaawac iyo dhimashaba maadaama dee kolleyba dagaalku uu khasaare dhalinayo tirakoob ahaan kan dhanka dawladda maxaa ka haysan ciidanku? horta ma ahayn ciidanku gaadmo ma ahayn waa lala socday inay soo weerar soo yihiin ciidanku wuu la socday. isla markaasna ciidankii oo diyaar u ah bay afka uga soo galeen. haddii meel horta dagaal ku dhacay waa imanaysaa dhimasho iyo dhaawac waa imanaysaa laakiin ma aha khasaare maaha. annaga ciidanka halkaa waxay ku dhintaa waxaa khasaaray ninka dhul uyan lahayn kusoo duulay isku qarxinaya wax diin ah iyo wax dal ah oo ka maqan ayay jirin. horta kaasaa khasaaray laakiin kan difaacaya naftiisa iyo maalkaasa ma khasaarin ee waa uu faa'iiday. xagga aakhirana haddii wuxuu ku helayaa ajar buu ku helayaa. xagga adduunkana haddii waxay la tahay dadkiisu baal dahaba buu ugu jiraa. marka khasaare ma sidaas aynu ahayn. waayahay dhinac duqeyn baad sheegtay inay jirtay. duqeyntaas ayaa fuliyey? ciidamada waxa weeye saaxiibadaan ahay imaaraadka ayaa fuliyey. waaya marka hadda istiraatiiji ahaan iyagu xaggee ku sugan yihiin? iyaga beeska ay kasoo duuleen waa laga qabtay. waana lasii eryoonayaa. marka iyadoo beesas kaleeto inay jiraan waa loo malaynayaa laakiin beyskii markii horeeto ciidanka muxuu ahay mukhaabaraadka ahi wuu kusoo ogaaday intelligence uu kusoo ogaaday oo la rabay xalay in la weeraro. waxa weeye waa laga qabtay waa la qabtay laakiin wixii haddee farxadaho iyo wixii kaleeto waa laga yaabaa inay raacyo kaleeto nimanka waayada soo bay surursanayeen. dhul adag oo aagaa lagu diriraayo oo dhowr meelood kala duwan ay saldhigay ku leeyihiinna waa la aaminsan yahay oo inta la hubo ilaa 3 saldhig baa aaga gaasa. waayo ugu dambeyntii taliya adigoo mahadsan waxaan arkaynaa ciidamo iyagoo kilibya iska soo duubaya ama mobilada ha kaga duubaan
oo waxa weeye maxaa la dhahay dagaalka ku jira, taasoo dad badan ay u arkeen in dhanka cadowga ay waxa weeye maxaa la dhaha u sahlayso inay taarget gareystaan oo hadba ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo meelaha ay joogaan. saraakiisha ciidanka haddaad tihiin arrintaasi wax maara ama loo waayo ama xal? wallahi bini aadanku waa dadku iska fara badan yahay, shacab badan baa ku jira. shacabku hadii nin shacaba waxa weeye kuma saabtami karo qaabka sidii uu muxuu ahaayey uga digtoonaan lahaa, laakiin intaas waxa weeye hadeerna waa u sheegaynaa inay joojiyaanin oo waxa muxuu ahaayey duubitaanka iyo sawirada in la joojiyo hadeerna waa uga digaynaa, horena waa looga digay.